بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal sida aan la wada soconno duruufo adag ayaa soo food saaray kumanaan ka mid ah dadkeena Soomaaliyeed kadib markii ay ku habsadeen qaybo badan oo ka mid ah dalka abaaro ba'an oo galaaftay naf iyo maalba. inkastoo maanta iyo shalay ay ka curteen dhowr gobol roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahad celinayno kana baryayno inuu inoo ziyaadiyo naxariistiisa. waqtigan adag waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag, iyadoo aynu maal iyo muruqba isugu geynayno gurmadka walaalaha dhibaataysan ee gaajada iyo biyo la'aanta ay hayso. waxaan xoojinayaa baaqii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay 23 bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah, anigoo faraya dhammaan hay'adaha dowladda inay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabista xaaladaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka. sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xooggan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha. waxaan u soo jeedinay dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo 20% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan. walaalayaal, waxaa muhiim ah inaynu badinno allabariga iyo roobdoonka. waxaan rajeynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman, iyadoo aynu la imaanayno asbaabaha dambi dhaafka iyo naxariista alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi, iscafinta, sadaqada iyo isu naxariisashada. wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.